waxaa gobolka Shabeelle ku habsaday shirkado shisheeye oo ku mashquulsan hagardaamada iyo dhibaataynta shacabka reer Shabeelle sida aan la wada socono xukuumadda gumaysiga Itoobiya ayaa sanadihii la soo dhaafay gaalaabaxaysay magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle iyo deegaanada ku xeeran taliska guud ee Itoobiya iyo saraakiil dhinaca ciidanka ayaa si isdaba joog ah u gaadhay magaalada Goday iyagoo sheegay in halkaasi ay ka wadaan mashaariic horumarineed oo dadka waxtar u leh hayeeshee waxaa soo baxay in taliska gumaysigu oo qorshe fog oo lagu dhagrayo shacabka dulman ee isla markaana lagu khayaamayo oo halkaasi ka wado shacabka ku dhaqan aaga bari ee degmada Goday ayaa bilihii la soo dhaafay soo jeedinayay cabasho ballaaran iyagoo sheegay inay nabaad guur iyo dhibaato baaxad leh ku hayaan shirkadaha shisheeye ee dhulkaasi xilli hore laga gaday shacabka deegaanka ayaa sheegay in dhulkoodii qayb weyn oo kamid ah laga dhigay dhul lama galaay ah waxayna shacabku deegaanku sheegeen in dadka iyo duunyadaba laga celiyay dhul daaqimeedkoodii kadib cabashadii shacabka oo aad u badatay waxa ishayn kari waayay gudoomiyaha degmada Goday oo noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee dareema dhibaatada lagu hayo shacabka Soomaalida Ogaadeniya gaar ahaan shacabka ku dhaqan degmada Goday muwaadinkan oo lagu magacaabo Deeq Cabdulaahi Cabdi ayaa sida aan xogta ku helnay la tagay ciidamada Maleeshiyaan isagoo oo shirkadihii shisheeye ee cabashada laga keenay ku amray inay joojiyaan howlaha shaqo ay wadaan hayeeshee waxaa amarkii gudoomiyaha iska dhaga tiray shirkadihii howlaha sharci darrada ah ka waday halkaasi kuwaasoo isku haleyn ka haystay taliska sare ee Aradkiilo balse Deeq ayaa ciidankiisi ku amray inay maxaabiis ka dhigaan dhammaan waxa meesha jooga isagoo isugu geeyay magaalada Goday halkaas oo uu ku maxaabiisay arintaasi waxaa soo farageliyay taliska sare ee gumaysiga Itoobiya isagoo wakiilkooda Mustafa Cagjar ku amray inuu si degdeg ah hawshaasi wax uga qabto Mustafa Cagjar oo hadaabka ay shisheeyuhu u isticmaalaan boobka kheyraadka reer Ogaadeniya ayaa si dhaqso ah uga soo degay gegida dayuuradaha ee magaalada Goday kadibna isugu yeeray maamulkii gobolka iyo kii degmada si uu wax uga weydiiyo sababta looga joojiyay hawlihii ay federaalku ka wadeen deegaanada dhaca bariga Goday isagoo amar ku bixiyay in shirkadihii shisheeye si dhaqso ah loogu fasaxo hawlahoodii shaqo joojina lagu sameeyay gudoomiyihii degmada Deeq Cabdulaahi Cabdi odayaasha degmada Goday oo codsaday inay la kulmaan Mustafa ayaa dib isaga laabtay kadib markii uu Mustafa diiday la kulankooda isagoo odayaasha ku eedeeyay inay ka dambeeyaan qorshaha shirkadaha ajnabiga lagaga joojiyay shaqadooda dhinaca kale shirkado kale oo ajnabi ah ayaa howlo cusub ka bilaabay deegaano ballaaran oo u dhaxeeya degmooyinka Beercaano iyo Dhanaan ee gobolka Shabeelle halkaasi oo horey loo calaamadeeyay biradha dheerna la geliyay xogta ayaa intaasi tilmaamaysa in tuulooyinka Mugweyn Dhana Dacar Qandhar iyo Dudun oo dhamaantood u dhaxeeya degmooyinka Beercaano iyo Dhanaan ay soo degeen shirkado cusub oo laga bilaabay wax lagu sheegay baaritaan waxaana halkaasi la geeyay ciidamo badan oo lagu sheegay inay ilaalinayaan amnigooda ururka ONLF ayaa dhowr jeer hore ka digay hagardaamada gumaysiga ee ka socota guud ahaan dhulka Soomaalida Ogaadeniya gaar ahaan gobolka Shabeelle oo si muuqata loo galiyay awood si wax weyn looga bedelo arrimaha dhaqan dhaqaale ee halkaasi ka jira dhulka iyo kheyraadka gobolkana lagu xalaalaysto hase yeeshee kuwa si xun wax u sheega ayaa hadalkii ururka iyo digniinihii isdaba joogga ah u bedelay dacaayad iyo in shacabka reer Goday loo diidan yahay nolol iyo horumar u soo socda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya Jowxo ayaa sidoo kale dhawaan waraaq u dirtay shirkadaha shisheeye ee dalka ku sugan iyagoo u sheegay in kheyraadka Ogaadeniya ku jira ay leeyihiin shacab dulman oo haddana diidi kara wixii ay sadantooda ku jirin horeyna u soo diidi jiray si guud kheyraadka Ogaadeniya waxaa ku socda boob xoogan waxaana gacanta loo geliyay shirkado aan dan ka lahayn dadka iyo deegaanada oo raadinaya faa'iido oo kali ah